hore ahayd gabdhaha kale lamid ah oo qurux badan kolkii ay gashaanti noqotay ayaa la guursaday waxayna dhashay 3 gabdhood dabadeed iyada oo reer leh ayaa dooxada nugaaleed ee ay ku noolaan jirtay waxaa ka dhacday abaar xuno dad iyo duunyaba lagu hoobtay gaajadii markay u adkaysan weydana dad qaata ayay noqotay hilibka dadka ayay maansatay markaas bay cunno kasta oo kale ka go'day si ay haddaba dhallaanka u xisageliyaan xoreeyaashii sheekadu waxay muuqaalo aad u foolxun ka bixiyeen isbedeladii dhagdhag ku dhacay kadib markii ay dad qalatowday waxay ku tilmaameen qof aad u buuran aad u xoog badan aadna u dheeraysa haddii qof cayrsanayso sida dabaylaha ayay u xiimi jirtay cid ka baxsan kartaana ma ay jirin waxaa la yidhi waxay lahayd timo cad oo markay ordayso sida saynta fardaha ay dabayshu gadaal ugu sayrto waxay kaloo ahayd baa la yidhi inta aad u gudguduudan waxayna wax ka arki jirtay dhul aad u fog awoodda maqalkeeda ayaa intaas ka darayd maalin gelinkeed meel loo socdo ayay wax ka maqli jirtay haddii xataa ay waxaas yihiin laan ay dabayshu geedaha midkood ka jibisay dhacdeeda labadeeda dhagood way kala abuur duwanaayeen mid baa tan kale ka dharayd waana halkii uu magacu ka raacay kolkay jiibsato ayay dhegtaas dheeri kor u lignaan jirtay ilaa ay gamacdo markaasoo ay dhulka ku dhici jirtay xoreeyaashii sheekadu waxay kaloo dhegdheer ku tilmaameen inay waayadii dambe bahal u ekaatay hilibkii dadka siday u cunaysay ayay yeetay miciyo kuwa uutada aan laga aqoon iyo cidiyo kuwa gorgorka u eg xoogga kala mid ah cidiyahaas iyo mindi afadan oo gaaleefa ayay ku dili jirtay kolba qofkii ay maalintaa soo ugaarsato sida sheekadu leedahay dadqalatadu waxay lahayd hamaam ka tira badan qoyska Soomaaliyeed ee reermiyiga ah kuwii uu lahan jiray badanaa qoys waliba ugu badnaan wuxuu ku aqdaamin jiray 5 haamood ama ka yarba iyada kuwii waxay ka koobnaayeen 10 haamoodoo mid mooye inta kale ay biyaha ku kaydsan jirtay midda tobnaadi waxay ahayd qarsoodi oo xataa gabdhaheedu kama warqabi jirin wax ay habartu ku fasho waana hilibka dadka ay qalato tii ay ku ridan jirtay macbay lahaydo waxa la oran jiray bowdheer markii la buujiya dhulka meelaha ugu fog ayaa laga maqli jiray dhegdheer aad bay u argagaxgelisay nolosha bulshadii reer miyiga ahayd ee ay dhexdeeda ku noolay carruur iyo waayeel dumar iyo rag wadaad iyo walaale cid u dagatay oo ay dayn jirtay ay jirin meeshii lagu sheegaba 4 gedi baa looga guuri jiray markaas baa dadkii naftii isugu timid carruurtii baa xoolihii loo darsan waayey 2-3 nin in la isku raac mooye socodkii kelida ahaan waa lagu dhici kari waayey si la yeelo iyada oo la garan laayay ayaa dhalaartii dambe waxaa aqaladii dhegdheer ku soo leexday gabdha habow ah oo aabbahood catircana ku nuuge waxuu siiyey intuu waayey uu duurka ku amiyey mid ka mid ah aqladii kolkay galeenna waxay ku arkeen gabadhii dadqalatada oo tiraxaadka ku xiran markaas bay weydiiyeen gabadhay maxaa meeshaan kugu xiray markaas bay u warantay oo ku tiri meesha waxaan ugu xiranahay hooyaday oo aad qalata dhagdheer dhowr jeer ayaan isku day inaan ka baxsado sidii ay yeeleen 2 gabdhood oo walaalo aan nahay sidaa daraadeed ayay mar walba oo ay ugaarsato halka igu xirtaa aniguna inkastoo aan ina dhagdheerahay haddana dad qalata maay hilibka dadkana muxuuna walaalayaal iga teginina gabdhihiina markay ogaadeen aqalada ay joogaan inay kuwii dhagdheer yihiin ayay naxino naf iyo noloba ka quusteen kulaas bay waxay ina dhagdheer ku yiraahdeen gabarey annagu waan iscararaynay nawday markaas bay ku tiri hooyaday hada waa inagu soo dhowdahay kamana carari taani iska joog meel baan idinku qarinayaa dabadeedna markii ay seexato oo ay dhagteeda dheer u dhacday ayaynu isugu tagaynaa oo dilaynay dhagdheer oo labadii gabdhood raar ku duurtay ayay duqdii timid hadiiba intay shidatay ayay ku ridatay wiil yaroo ay soo ugaarsatay gabdheedii oo halkeedii ku xiran ayay inta xaggii ka furtay waxay ku tiri naamaande markii dugsigu ka karo oo hameenku kala barmay toosi iyaduna way daalanayday iska jiibsatay yeeshee intaysan gamin ayay si uun u dareentay in reerka lagu jiro oo iyada iyo gabadheeda lagu weheliyo markaas bay tiri dhamaan maxaa urayana sahblow baa uraye gabadheedii baa kolkaa ku tiri hooy waa kuwayge manigaan hunguri iga kaa galay wax yar kadib ayay haddana la soo booday dhamaanday gari buuran oo gabdheed baa uraya hooy waa taydee manigaan hunguri iga kaa galay ayay gabadheen tiri cabaar kadib ayay haddana inta soo hanqatay oo suxulka mudatay waxay tiri dhamaanday xulus gabar ugbaa urahaya waa kayge manigaan hunguri iga kaa galay
markaas bay ugu jawaabtay haye intay tiri ayay iska aamustayoo haddiiba gamacday markaa dhegteedii dheeray dhulka ku dhacday markaabaa saddexdii gabdhoodna isu yimaadeen digsigii karkarayay fuudkiisii intay saddex weel ku kala shubteen ayay dadqalatadii dhegta kaga shubeen iyadiina haddiiba xanuunkiibay la soo boodday se waa cabaaday afkii ay kala qaadayba fuudkii u haray bay gabdhihiina dalqada shax kaga siiyeen markaabay dhulka isliqday cabaar yar kadibna way dhimatay isla markiiba roob aan xilligiisii la gaadhin oo dayad iyo gu aan midna ahayn ayaa buuraha xargaga iyo agagaarkooda ka dhacay kolkaas bay gabdhihii heeseen waxay yidhaahdeen dhagdhadhii matay roobey dhulkiina matay roobey allow roona roobey sida muuqata sheekada dhegdheer waxay leedahay duluc dhow iyo mid shishe tan dhowi waxay tahay in xilliyada ka mid ah ay dhulka soomaalida dadqalata ka jirtay ifafaalahaas oo ay abaaruhu sababi jireen ducda shishana waxay tahay in ugu dambaysta khayrka iyo sharka uu khayrku gacanta sare leeyahay inkastoo marka qaarkood la moodo in aan sharka loo bacdhigi karin taana waxaa inoo caddaynaya sidii fududayd ee habla yaryari ay u dileen qoftii waayeel oo dhammi uu wax ka qaban kari waayey bulsho weynta cid ka badbaadisa qoftii la waayey qoftii laga harsan waayey laga hoyan waayey ee laga soo xeraysan waayey waxay haddaba dhegdher u taagan